Somali waynay waxaad wadaagtoon wadaag jirayn qaybihii koobaad waxaanu kaga soo hadlay sida ay ugu nool yihiin dalka Hindiya gaar ahaan xilliyada ay fasaxyada yihiin waxyaalaha ay qabtaan sida banooniga iyo barnaamijyo kale badan oo ardada faa'iidooyin badan u ah qaybtan insha Allah waxaanu xoog ku saari doonaa sida ay ardadu wax u bartaan iyo dhibaatooyinka ardada qabsada xilliga ay ku xirtaan waxbarashadooda iyo waliba hadduu jiro baaq ay u dareeyaan ardada ayaga lamida ama da'adooda iyagoo ku sugan dunida dacaladeeda barnaamijka insha Allah taala maadaama dad muslimiin aan nahay wax meeshan isku yimidna ay yihiin Soomaali inta badan lagu yaqaano dad diinta xageeda u jajaban ayaan waxaan ku bilaabaynaa aayad quraana waxaan noo akhrin doonaa arday kamida ardada halkan isugu timid waana ardaygan geeska fadhiya faltafadal bismillahir rahmanir rahim tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم ما شاء الله تعالى. إن شاء الله waxaan ku sii gudbinaa barnaamijka qaybtiisa kale halkan ragga fadhiya waxa isku jiraan dhalinyarada dhigata dugsiyada sare iyo dhexe iyo waliba ilmo yar yar oo ayagu dhigta dugsiyada hoose haddii aan u sii galo barnaamijkeena halkan ardada wada fadhisa oo dhammaantood arday wada ah qaarkoodna ay dhigtaan dugsiyada sare iyo kuwa dhexe iyo weliba hoose dad badan oo Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay barnaamijkan daawadaan qaarkood guri kaga jiro inay India waxbarasho u socdaan iyo weliba wadamo kale oo banaanka ardayga geeska xiga adigoo magacaaba ku bilaabaya magacaaba bartay Sharmaake Khaliif Cilmi Sharmaake gorma Hindi timi waxaa timid 2007 okay class ka Sharmaake class ko talabarta okay Sharmaake Hindi waxaa timid 2007 ama 2007 qofka sidii u yaqaano waxaan dhigataa fasalka ay sheegay kooxdanaad oo hadda aan rajaynayaa hadda xirtay waxaan ku weydiinayaa bal dalka Hindiya maadaama laga yaabo inaan Soomaaliyana kalaaseen ku soo qaadatay bal ka waran waxbarashada dalka Hindiya okay waa u soo laabanaynaa Samaak wuxuu yidhi waxbarashada Hindiya aad iyo aad u fiican tahay haddii aan ku galo barnaamijka dhalinyarada waxaan ku jirnaa inaan ogaano marka hore dadka xilliga ay yimaadeen dalka Hindiya iyo kala sida ay dhigtaan kadibna waxaan geli doonaa barnaamijka qaybihiisa kale haye adigoo oo magacaaba ku bilaabaya ardayga kale magacaaba sheeg gorma Hindi timi magacayga waxaa la Mustafa Ahmed Noor Hindi waxaa imaaday 2006 gaaska dhigata kuntunaad ka waran waxbarashada dalka Hindiya wallahi aad u fiican tahay okay adiga waxaad leedahay waxbarasho fiican baad haysataa oo mustaqbalkaada ku wanaagsan karto soo ma okay haye aadoo masna Mustafa haye adiga magacaada galaaska dhigato xilliga Hindi timi magacayga Maxamed Abdullaahi Kadiye galaaska laga tumaada taa haye gorma Hindi timi Hindi waxaa imaaday 2008 ka waran waxbarashada dalka Hindiya waxbarashadeeda fiican tahay okay waxaan rajaynaysaa marka mustaqbal fiican inay ku noqoto waxbarashada Hindiya ka baratay insha Allah fiican okay aad baad u mahadsantihiin waxaan soo jeedanba waxaad isku raacdeen inay dalka Hindiya ay waxbarasho fiican laakiin ardayga waxbarashada ku jira ama wadanka uu ku cusub yahay waxaa hoosan kara dhibaatooyin laga yaabo xagga luqadda inay tahay xagga dhaqanka oo ilmaha iskuulka markaad tagtaan waalidka kamida u tegaysiin sida unahay iskuullada xataa bashariya wax dhibaatooyin oo dhici karto kuwaan kugu dhacay waddankana kula haddaa kugu fiican waa ma sheegi kartaa dhibaatooyin badan ayaa ugu dhacay markaa iskuulka dhiganahay class shamar imaaday markaas ardayga geesa la fadhiyey markaa leeyihiin muuqaal ahaan waa ka weynahay markaas cuntada raashin oo qaadan jirnay iskuulka cuntada markaa soo qaato baasta soo qaata marko
وأصير من أكثر من رياضين بالكسر حبل وخاضي وحن حوالي وحن مارتي حاول سؤال أساسي اللي بيرا مثل أنا أستحرق على عسكري. عمد المعرض الناس كذوش. قسم وفاهم. وايد. تصبح مدة أكثر كحديثي وحياة استعماله. مرة دمانسي دراسة كان كتب. ليه هو ينام لغة الإنجليزية كم هي كأقول. لغة حاجة حاجة بسيطة بس. وقت والله يقول عليه خصوصي الإنجليزي ما أقول ما أقول معناه مركز كانوا كانوا صور بعض أو ما يجلسني سعيد وتجاه كده وتجاه مرة وحصل عمل على حسام وكذا صار أي حاجة كنا عن ما وما معاه ما بقوله وايد. ما يعمل لنا عسك السؤال كذا وتجاه سوق روحها لما شن كان عمل مقاولات يا أيوة والله يا ما قلت إنسان هيبحث يسعى كولا تعالى كذا نعمل كتابة أو كتاب سوبر قوامي السوق سكول من هالجوك أو جلسة أكو جوك معنا نروح بشرح حساب لغتنا لغة غليا غليا بجلسة جديدة حتى أعطاك رافع الإنسان إذا السوق غلبان تصبر الحسن جدا تصبر والله لكم معنا نروح شرح الوقت الأطفال وحان فهمين مصر الفن تشرب لكم سمع وهاي ما فهمتوا فهمت شيء عندما محمد مثل ما كان هذا هذا اللي شيء أو حد ما شيء توش نقول شيء ما كان مباشر وخسر على كل خلاص أبطي بعد إن شاء الله تعالى هذا مركوب هو في عين أوكي إن شاء الله تعالى سوى ذلك كذا إن شاء الله تعالى ونريد أن كجرنا عطلا أنا الله أقول يركب وسوق الجونا هي أرجع إنجاز أديهم على الدراسة الكلاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعوان خليفة. ما أعوان خليفة. هي أحمد خليفة جورنال وتبدأ في شو ده سبعة كتبوا؟ أوكي دراسة كده هذا. كم راح تبدأ في إنديا؟ بس كده عن ولا أوكي. كم راح اللي بتقولين هذا الأسبوع بشيء إنه اللغة الإنجليزية أو how much أوكي أنا كمان وحكر شيء إنه دور راشين قاتلي سي وش عتريس ده خصوصا بعد تقول لي إنه أنت أسوق جل وتسكت يعني يعني كسر تري هذه محاولة بتقولي قطعت أبي أحلامه أنا ما عندي دور إنجليش نوابا عندنا مع نوابا بس كل ما حاول وقعت أوقع والله يا ما كان أوقع يا قاتل أوقع أطول أطول بس معنا ده ما نقدر مرة وقع قوس ولا قصة عن ممتع وقصة حتى هي كان يتطعم ما عنده في الفيلم ده برمي ألف أصلا ما حد عمل هي مرة هي كان ده صح ماشي اسمعي ما عندك كده أي حاجة كونسل يعني عندنا بسكوت مقام مركب عند مسؤول مقام لا حد لا أوكي تسوى مدة واحد جيني هذا رطوس صومالي أوقع يباسطي عن تياري وقوة وكسر أخبار الوجعية مقصد أي رطوس بقى واحد قاصنا بدون مسؤول لا أنا ما عندي بقى بسكوت أوكي حد لنا كويس كده حاطط كان أصلا لا ده يا خسرت ما في بسكوت من أول سنة مع إن أنتوا حد راح وراح أضيف المسؤول شاب بتاعه شاب ما كنا نقدر نحملين شاب طبعا أنا بعرف أسوي ما كان بسكوت من كمان إحنا بتاع حفظ وقت نجار ما كان هاي شاب واحد أنا المسؤول شاب طبعا ما كان شاب هذا شو من ديوان هنا شاب سيد الأولى هنا بالسؤال سواء إذا ما سكوت ما كان واحد وراح أضيف المسؤول وراح أضيف أوكي مركب عليها ورقة الوسوق أو الوسوق اللي واحد يروح الوسوق ولا ورقة مقعدة وحال لها شاب شابكي سوالي أكتر وسؤال على طول يقول واحد شاب هذا كيف أو على الوسوق مركب هوي واحد وجاء مش عارف الوسوق هي سيدا كلها ما أوكي وقصة يعني هي مصطفى يقول عن تجمع ليرة ويسكول تقوية كان وصولا إن شاء الله تعالى مصطفى عليك وحوشة يجوا عن هذه صاحبها كشيء هاي يوتيوب عن أكل لانجويج أم هذا عن طريق حاله عليك كل خمس وسط كتبها وقع وقع لا ولا وظيفة في عنده كل يلا ولا شيء يوتيوب وصولا وسطيك أنت بشرة كوشتي باللغة كافصلين أما إما كلاسك أما برناك أما أي شيء أما أنت أقاطع ما قال بلوي حاجة ولا واحد مثلا كوي لو مكان كده ما يجي نحط التليفون شوية
والله واجه دبعت بلد أنا حتى سكول كما كتير حتى دبعت الإنسان كوين أي يعني حتى إنجليش كما أقولي معلومات كي واحد إكسبيرينس نسو بس كفر يعني إما واحد ما ياخذ اللي واحد أقوى حتى ما يعني معلومات بمشي تفهم هاي والله أنت صفة على شو بدري وحائفة ليش مثلا يعني marka waa fahanday marka hore laakiin dib ay ku waday okay insha Allah taala waxaan dareemayaa inay dhibaatooyin badan ay qabsatay waxaan salka ku hayaa kulli waa dhibaatada waddanka ka jirta oo qof walba oo hadduu waddanka kale ka jira waxbarasho ugu soo hayaan haye markaan waxaan gelayaa dhalinyarada yarka haye anoo ku bilaabaya yarka shishe magacaaga yaa أمين سيد عمر محمد أمين سيد عمر كما عندي تبي 2008 أي درست كم بدأ؟ دوات لا والله أمين أوكي محمد أمين كم حفظت فيه؟ هذه الوفرانة أي وحضرنا هو بشعب فيها أوكي أمين أنت وحبرنا في وحفظت وشتي سكون ممكن نقول لا هذا واحد dhibaato ku qabsaday oo ku dhibaato waddanka kaliya ugu celi meesha aan qabsan karin wax ku garanaysaa ها وعاد هذا الأيام كو هذا السكول كمت أعمال كبر أنا حاول عليها وأولا إن وضع كلاكية لكن حاول عليها إن الوضع ذاك القطعين دي يجي الصومالي الصومالي هم أولاد الدجاج تم يخليه المني سكول كل اللي هو جديد يا سماع الراس الصومالي حقولها تقول والله زاد سماع الراس أصلا هو جواب مرة ناس جواب حيقول على مدة يتشد أنا واحد كذا الملك markaas waa iska aamusasay saaxiibayaashii oo doo u socday ay u qabtay sawiir Soomaaliya asigana walaalkii kooxda indigo loo jeeday waxaan soo dhigtay class daashay asaana iga celin jirnaa oo ku sheegay dhibaatada waaysa okay hadda waxbarashada hindi waa la qabsatay hadda hindi waa baratay hindi ma maxaa ka baasha luqadda ma baasha hindi ma hindiga hada luqad badan oo urduga hindiga iyo teluguga English هذا مرة على قصدي وهو مرة وهو تبغى أقول أصلا سووا معانا يوم وأنا عندي إنجليزي أوكي great وأبو فعلا حنبيل هي هذا الوصول عطي صاحبنا واحد من يبادوي فرقان كاتب لي مثلا أنا واحد بعد أو قصدي أمر لغتها عاطو أمر نعكلها عاطو وإسقرام كنتو أنا ما يجي وحبوب في عوض كنا كل عاطو وحاجة مثلا أنا كان فصل كتير أنا كان فصل كتير Somali كلية هي سؤال كده شو حكيت عن هواية هي عبر المركة واحد بصير سوا أنا كلية أنا فاهم جدا لكن أنا أسكت ما كنت أفهم هي على عفو وقصان هي مركة ضمبة عندي لو أسمع عن ناس أكتر عندهم مرود هي وكم هذا الرؤوس وكلام هي مركة كل بلد عندي هي أنا وين جدي هي marka iskuulka maalaha keeno dagaal ay tigi jiro dagaal baa ku jirtay marka maadaama weli meesha ugu dhigana aad fahmaynin waa ka tag meesha kulli waxa ka leeyahay sanadkan la dagaal ku nastay هي ma iska fiis هي ألبا مناسبة هي واحد جديا مع صورة رمية مركز أدريان هم كان فديا هي ألو ما عرف بلاد هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا أنا عمر محمد عمر. حقيقي أول كنت يقول لي ما تعرفش يقول سنة هو عصوت هذا تدفع أسبوع طيب كنت قاعد في مع البروموشن يعني أنا ممكن بدي سكور من يوم أكسر مني لكن بدي إن شاء الله وحكينا إلى جامعة بلاو إلى هنا في اليوم سويت عيد إن شاء الله تعالى أو كسر عنا هي يوضع تكمل وأكتر سوق عطي سؤال برضو بس Somali الحين كنت أقول الإنجليزي لا ما أقول سنة سلاسة هي ثلاثة
والله أفكس وسبحان الله يا رب. marka waa fiican tahay sagaal sano Soomaaliya noqday oo daacad soo joogay hadda hidiyo gudaha qalanaya markan waa waxyaalo badan baa kulli wayaar baa ka umaleeya alxamdulillah ma sha Allah ay ardayda ay magacaada iyo daraaska dhigtay xamle waxa sheebaa jaamac xamle ayna ismay hay daraaska dhigtay class waxa طبعا وكان راح يشتري في فعل وفي عنها هي صاحب هذا البيت بيشوف كيف محسوب يقول يكون تعبان ولا هذا هذا كنت بعد ما في ناس لو بدهم يتقنين موسيقى ما أقول كوس بوك أو شيء ما أنا إنجليش ما أقول حاول يعني وحاول بقى وحاول مصارين أنا بقول بقى إنجليش أوكي أنا بقول أتبع السنة كده إنجليش كابرتين ولا قصدي أوكي ما شاء الله وتجربة مكبر بالبالي هي أدريان هي حمالي سوق الزريق هي كم مرة كشوفي والله ده بالفعل هي واحد بلاتون قصير مكان درس الله يقصرنا أفضل بالبالي الله أفضل أوكي ما شاء الله هذا واحد درس كده هذا الحديث قلتنا ما شاء الله هي أعطيك حاجة ما عاد واحد لا عبد الرحمن ولو كنت بيت مكاني بيت مكان سكول كانتي ولا خصوص ما يدور بس لا بيت كاي باتالا هي language أو هندي أم إنجليزي يو إنجليزي كلام هي إنه عكس كده سكر وعلي سبعة المكان هي هذا أنا هو عصوبة أنا وعصوبة ولا عصوبة إما halkaas waxaan ka dareemay inay jiraan dhibaatooyin qofka si ha u taabo inay dhibaato